السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر هذا برنامج كيني سهن أو برنامج أنت بدنا أنا واحد بدنا كجو جانو حقيقيين كيدعوين كدبتة إلى صدر ساعة ذكر الصوماليات برنامج كيننا أنا يعني وحنا كويك دونا صومالي ذا يوليبا ودن كنروي برنامج كيننا غير بدنا كقومنا دونا وحنا وإنتي سبضنا وكوساب سنة دونا dhibaatooyin ka dadka Soomaaliyeed kana kulmeen waqtigii ay yimaadeen wadanka Norway oo ah dhibaatada ugu weyn ee kala xiriirta qaadashada caruurta dadka Soomaaliyeed ay yimaadeen wadankan ama ay ku dhaleen xanuun intee leeg ay leedahay ama ay ku keeni kartaa waalidka hadii daqiiqado gudahooda laga qaado caruurtii uu dhalay ha hada 8 10 11 ama hal daqiiqado gudahooda hay'adda Bambana waa hay'ad iyadu inta badan xoog saarta uguna awood badan isla markaasina isticmaasha awood ciidan marka ay caruurta qaadayso sidoo kale barnaamijkeenan waxa aad ku daawan doontaan qaybo badan oo kamid ah waxyaalihii uu qabsoomay dadka Soomaalida wadankan Norway haday noqoto ganacsiga diinta dhaqanka iyo waliba qaybaha waxbarashada barnaamijka sahan inta badan waxa idin soo saara anigu Ibrahim Maxamuud Jaamac iyo waliba Ikraan Ali Kar daawadayaal barnaamijka daawasho wanaagsan Norway waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu qaalisan waxaana uu ku yaalaa cirifka waqooyi ee qaaradda Yurub waxa uu ka tirsan yahay wadamada la isku yiraahdo Scandinavian-ka ee Finland, Norway iyo Sweden. Kontonkii sano ee ugu dambeeyay waxa si weyn u soo kabcaya dhaqaalaha wadankaasi oo dhinaca soo saarka shidaalka laga helay dalkaasi uu noqday dal qani ah. dadka Norwayna waxay aaminsan yihiin inuu yahay wadan oo haysta shidaal ka tiro badan midka ay haystaan wadamada gacanka Carabta haddaba dalka caynkaasi sidee ay xaaladiisa siyaasadeed iyo nolosha wadankaasiba u yahay madaas waxa la yiraahdaa waxay leeyihiin model gaar ah oo siyaasadda hab ay raacaan oo iyaga u gaara oo aan cid kale lahayn habka ay raaci jireen waxa nidaamka la yiraahdo social democratic oo macnaheedu yahay waxa weeye social democratic wuxuu noqonayaa hanti wadaagga dimuqraadiyadda ku dhisan taasoo macnaheedu yahay in maaragtay dawladdu ay gacanta ku hayso inta badan kaabayaasha dhaqaalaha dawladda nidaamkeeda iyadoo markaa loo danaynayo bulshada iyadoo markaa qofka had iyo jeer shuruudaha qofka muwaadinka lagu xidha ay tahay in uu sida uu wax u awoodana dalka u caawiyo caawimo contribution u sameeyo sida baahidiisu tahayna isaga dib loogu caawiyo marka qofka waxa loo barbaariyaa inuu dalka leeyahay oo dawlad dimuqraadiyadda guud ee Yurub laakiin tan waxay ku dhisan tahay social democratic in maaragtay hadhowto markaad dhibaatada ku qabsato markaad hawlgab noqoto markaad jilicsanaato markaad xanuunsanaato in aad kaydkii adigu aad hadhowto isku dabari lahayd sii dhigato oo markaa waxa la yiraahdo kaasada ka dhaxaysa ama khasnada aad lacag soo geliso marka nidaam noocaas ay ku dhisan yihiin marka xisbiyada runtii xisbiyada liberaalka ayaa ugu horeeyay bariyihii hore 1800 la abuuray oo runtii ahaa xisbiyadii ugu horeeyay ee Norway ka jaan qaaday laakiin labada xisbi ugu muhiimsan ee Norway ka shaqeeya waxa weeye xisbigan social democratic ama xisbiga la yiraahdo xisbiga shaqaalaha Arbeider Party loo soo gaabiyo oo anigu aan ka tirsanahay oo xisbiga runtii ugu faca iyo da'daba weyn marka la eego dhinaca khibradda iyo soo jireennimada siyaasadda xisbiga runtii oo soo dhisay Norway ayaa waxa uu habka social democratic ama modelkaas ay ku soo dhisay wuxuu soo abuuray maaragtay in dadka shaqaalaha dadku dhamaantood qodobka ugu horeeya waa in dhammaan dadku shaqo wada helaan taasoo macnaheedu yahay in qofku markuu shaqo helo in haddana shaqadii ay la socoto xuquuq oo dabagal lagu sameeyo qofku markuu shaqo u naan la siine inuu xuquuq yeesho in mushaharada ku filan tahay inuu cashuur bixiyo in markuu xanuunsado maaragtay fasax la siiyo in lacag u soo dhacdo in dhakhtaradu bilaash noqdaan yani modelka noocaas ay ku dhisan tahay
waxaa runtii jira qolada kale naga soo horjeeda oo qolada conservative-ka ama xisbiga la yiraahdo hayraha ee garabka midigta oo isaguna ah xisbi ku dhisan nidaamka hanti-goosiga ama conservative-ka oo micnihiisu yahay in la xoojiyo qofka marka ugu horeysa la dhiso qofka marka la dhiso marka qofku aan cashuur yar la bixiyo qofku istabaro qof waliba maartay wax barto qofku isku filaado aan marka had iyo jeer u danaynin dadka jilicsan ee bulshada marka waa fikradtii hore ka duwan haddana waxaa jira labadayda sharci naga dhaxeeyo odhanaya maaragtay in qofka jilicsan la caawiyo inkastoo iyadoo ay wax yar siinayaan caawimo badan aanu siinin xisbigan garabka midigto haddana sharciga Norway wuxuu dhigayaa in qofka constitution-ka ku qorantay in qofku shaqo helo waxay ku xusan maartay in qofku meel u seexdo wuxuu cuno iyo wuxuu qabto intaba la siiyo marka runtii nidaamka noocaasa ay xisbiyadeeda ku jaan qaadaan oo dawladda Norway ku dhisan tahay labada xisbi markaynu ka tagno waxa jira xisbiga kale ee la yiraahdo maartay progressive-ka oo isaguna ah xisbiga xaq jirka oo soo baxay ilaa wadamadii 80meeyadii la sameeyay kaasoo marka labadan fikradoodba ka soo horjeeda oo had iyo jeer leh dalkii baa laynaga qaadaya dadka ajnabigana dalkay ku soo bateen marka had iyo jeer siyaasaddiisu waxay ku dhisan tahay nacayb iyo maaragtay waxyaalo caynkaas oo nacayb ah ay ku dhisan tahay waana xisbigu ka tirsanaa ninkii xasuuqay 77 qof 2010kii bishii July ninkii xasuuqay way xasuuqihii weynaaye sanadkii 2000 iyo adigu sanadkii xasuuqay aan saas inoo kal hore ama 2 sano ka hor xasuuqay dadkii 77 ahaa marka fikradii dib loogu noqdo xasuuqidaas oo kale hadaan ku yara tigaalo wuxuu oranayay maadaama xisbigan yahay dadka ajnabiga xisbiga soo gelinaya dalka waa in dhalinyarada oo marka meel ku shirsanayd oo meel gaar ah ay leeyihiin oo camp ah oo ay ku shiraan oo siyaasadda isku wadaarsadaan iyagoo ku shirsan ayuu tagay marka waa kii qoriga qaatay markaasna halkaas ku soo laayay qori laazara marka halkaas ku soo dilay si uu marka u ciribtiro marka runtii xisbigaas isaguna jira xisbi kale beeraleyda baa jira beeraleyda u daneeya oo runtii jecel in degmooyinka la dhiso beeraleyda wax loo qabto oo marsi gaar loogu caawiyo xisbi kale oo waxa jira hanti wadaaga oo dhinaca bidixda oo environmentiga iyo hawlaha ku shuqlan iyo mid kale isagana la yiraahdo Vensteraha ama dhinaca bidixda oo isaguna environmentiga iyo liberaalnimada ah maaragtay dadku waxay doonaan ay sameeyaan waddanka Norway waxaa ku nool Soomaali gaaraysa ilaa ku dhawaad 40,000 dhammaan waxay halkan u yimaadeen inay helaan nolol iyaga iyo ubadkoodu si ay uga nastaan daruufihii qalabsanaa ee kala soo kulmeen waddankii hooyo iyo waliba nolosha aan raaxada lahayn ee qoys walba uu u soo maray in uu qof ka mid qoysaskaasi naftiisa u soo biimeeyo si uu xubnaha kale ee qoyskiisa u keeno wadamada Yurub si ay ula qaataan nolol farxad leh iyagoo rajo ka qabo wadamada reer galbeedka laakiin taas bedelkeeda waxaa jirta in yidadiiladaasi been noqotay oo farxadii isu bedeshay munuga kadib markii ay daqiiqado gudahooda ku waayeen ubadkii ay la yimaadeen halkan kadib markii hay'adda loo yaqaano badbaadada caruurta iyadoo isku sheegta taasoo loo yaqaano Banfana oo wasaaradda ugu awoodda badan waddankaasi Norway ay si awood ku jirto u isticmaasho qaadashada caruurta Soomaaliyeed ee iyagu la nool waalidkooda ku nool waddanka Norway Nej, det gör jag fan inte. Jag måste få dottern med. Kan jag få ha det till dottern min? Måste jag ha det till dottern min? Måste jag ha det till dottern min? Nej! Så fan eller? Nej! Nej!
runtii wax la iloobi kara ma taariikh la iloobi kara ma xaqiiqiyad waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu adag ee noloshayda soo maray ka mid tahay isla mar ahaantaasina qof kasto Soomaaliyeed ay qabsato ama qof kasto oo macnaha bini aadan ba marka ay raahdo ay qabsato ay tahay mid aad u adag laakiin haddana waxay u baahan tahay qofku inuu maaragtay qaabkii uu uga badbaadi lahaa ama uga samata bixi lahaa uu sameeyo markaan soo koobo su'aashaada aan ku soo ururana waxay ahayd waqtiga dhacday October 2012 runtii anigu shaqan ku maqnaa hooyadana subaxii waa ka soo wada baxnay guriga wax information oo macnaha arrimahan ku saabsan ma aanan jirin wax dhibaato guriga ka jira ma jirto marka laga reebo wiil yar oo aniga dhalay oo wiilasha labada wiil aan gadaal ka keenay mid ka yar ayaa dabcan kulay information khaldan oo kulay isfaham waa luqadeed inuu jira aanu badinayo ayaa waxay ku yiraahdeen wuxuu noo sheegay information laakiin waxa sida sharciga wadanku qabo hadii canugu xitaa wax sheego waxa weeye in hooyadii lala soo xiriiro ama aabaha lala soo xiriiro isla markaasna xaaladda jirta iyo waxa ay tahay qolooyinkan wax qaatana waxay yiraahdaan anagu waxaan information ka soo qaadanaa baanahaagaha iyo iskuulka iyo meelaha la midka taciyalkayga aniga yarkaasi iyo midisa ka weyn iskuul gaar ay dhiganayeen kuwa kalena baanahaagaha iyo iskuul kale gaar ay dhiganayeen runtii intaas oo dhan ma aanay sameeynin wiilka yarka maalintii markay la hadleen go'aan degdeg ah iska qaateen anigoo shaqada ku maqan bay gurigii yimaadeen maamadan ay iskuulka maqan tahay guriga cid joogtay ma jirtaba wiilka ugu roon ciyaalka maalinta aan iskuulka aadin oo xanuunsanaa oo qandho yar haysay baa guriga ku haray inta kale qaarna waxay joogeen baanaaga kuwana waxay joogeen iskuulka waxay ka soo bilaabeen baanaagihii carruurtii baanaagaha joogtay bay ka haysteen kuwa kale iskuulka joogay bay gurteen markii ugu dambeysay waxay u yimaadeen kii guriga joogay ka laftirkiisa ku darsadeen markaas wuxuu ku yiri arrintan aad hadda aniga iigu timaadeen aabahay ma loo sheegay markaas ku yiri ma aabaha dib aan ugu sheegnaa markaas yiri ma jirto aabahay inaan macnaha hadaan la wargelin anigu meelna ima raacayo runtii markiiba telefoon baa ugu soo dhuftay oo arrinta ugu wargelinayo waxaan ku yiri aabe marka sida wax u socdaan ma garanayno adigu raac ana ku yiri raac bal meesha carruurta ay geenayaan soo eeg la tag soo arag updating marka ay soo sida wax u socdaan iyo cid ka dambaysa waxaan fahansanahay ma marka adigu 22 October 2012 ka yarka dhacay sidaas way tahay qoysaska Soomaaliyeed ee wadankaasi ku dhaqan waxay u qaybsan yihiin kuwa laga qaatay carruurahooda iyo kuwa loo soo celiyay markii laga qaatay kadib iyo kuwa kale iyagana digniin loo diray in laga qaadanayo carruurahooda iyo kuwa kale iyagana wadada loogu soo jira oo la rabo in laga qaato carruurahooda Ibrahim Beriba kala waxa igu dhacday isla inaan ka yar ku sheegayeen dhalay babyga ayaa iyagoo yarar waatan hooyada markay qada karinaysay kaligeedna tahay TV-yada baa la isku qabsanaya sheekadaas waa sheeko aad iyo aad u qosol badneed soo martay una xanuun badneed beriga waxa dhacday anigoo cunto karinaya ayaa waatan marka malqacada loo xaan wax ku karin jiro suudan qaar baan lagu walaaqi karin wax birta ah distiban cunto ugu diyaarinayo marka anigoo ciyaalkii yar anaan iskuulka imi iyaguna ay tagayaan ka yimaadeen iskuuladii baan haagaan ka keenay wada fadhiyaan ba TV-ga la isku qabsaday remote-kii inta malqacadu waxay baan ku war naga fadhiista mar dambana ha sameynina inaad isqabqabsataan ka yar baa wuxuu tagi jiray meel iskuul buu bilaabay marka isfoo baan geyn jiray meeshan after iskuulka isfoogii wuxuu ku yiri naag garood karinaysa wali malqacada hooyadee mar walba way farxtaa marka way xanaaqdo way noo soo qaataa naag waxay ahayd dhalasheeda aan Norway ahayno ajaanib ay markiiba baana bishimir milig bay iga gudbisay baankiiba u dirtaa warqad baa la soo diray waxa shukri aan rabnaa inaan kula hadalno haya baan ku yiri ana ugu tagay meeshooga waxaan ku yiri maxaa dhaw waxa la igu yiri shukri warqadan aan noo timi in aad ilmaha yar malqaad u qaadatay inaad ku turweysay maxaa u malaynaysaa waxaan ku yiri malqaad aan markaa wax ku karinayo gacantayda ku jirtaa baan ku yiri always ma dhigo waayo waatan wax ku karinayaan ku yiri mindi ma aha baan ku laakiin malqacada waatan wax ku walaaqanayo marka waxaan ku waan ruuxa marka waxay tir waa mamnuuc Norway inuu ruuxdo waxaan ku maanta adii sheegtay inaan malqacad la ruuxi karnaagtay
hore miyaad igu sheegteen baan ku uri weli carruurta sidaan anigu u koriyo baan ku uri waa si gaara idinkuna saad u korisaan malaha waa si gaara ku uri dacid inta ii timi dhakhtarka markaan ku umalan laygama soo sheegin gurigana qof iguma imanin marka waxaan ku uri taaday macnaheedu cidiimay sheegin laakiin hadday mamnuuc tahay in malqacad wadanka loo luxaan ku uri dib looma luxayaan ku uri ma ruxayo waxay igu tiri maxaad kala tusaysaa waxaan ku uri ilmaha markaan xanaaqo dabadan kaga dhuftaa baan ku uri dhirbaaxo dhegtana waan maroojiya qol baan ku tuuraa malqacadda ma ku uri sometimes baan ku gujiyaa baan ku uri haddaan doono waxay tiri de waa mamnuuc inaad samayso de waxaan ku uri maanta aad ii sheegtay baan ku uri weligay imaad sheegin marka ibraahimow taa haddii aan markii odhan lahaa malqacadna maan ruxin malqacadna maan taaban waraysigoodu wuu ka badan lahaa ilmo walba waan weydiinaynaa bay tiro kulli qof bay waraysteen waxay yidhahdeen hooyadana ma disho laakiin waxaa mucjiso ah oo masiibo ah ilmihii aad dashay adigu id waalidka u ahayd markuu maxkamad ku soo joojiyo in cid kale markhaatiyo lagu raadinaynin uu yidhaa wayna dishaa oo iyadaana garaacda inagu si gaarayno carruurteena u maleemayo hooyo Soomaaliyeed hooyo ka jacayl badan inuu jiro Ibraahimo u maleemayo hooyo Soomaaliyeed hooyo ka fiican in adduunka ku noosho iyaguba way sheegaan iminka naagta xisbiga cunsuriga haysatay siif la yiraahdaa waxa xaqiiqsanatay hooyooyinka ugu fiican hooyooyinka Soomaalida hooyo ka fiican inaan jirin taa macnaheedu maaha inay angel tahay waxay macnaheedu tahay haday noqoto dulqaad iyo hooyo kaligeed intaas oo carruur korinaysa waa Soomaaliyeed hooyo ilmaheeda nicibna ma jirto aniga hooyada jacayl bay dhirbaaxi jirtay ama wax xun ay iga celin jirtay tiiban inaguna wadnaayo baqana inagu jiro aanada tiina meesha ka marnayne laakiin u maleemayo hooyada ilmaheeda sida iyagu u garaacaan ama u abuse gareeyaan ama ay ula dhaqmaan ula dhaqantaa laakiin waxaynu nahay dad aan cid lahayn oo laga urursanayo shabaqa uga xareysano kolba intii la doono laga la baxayo tira marka taasina way soo martay aniga بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد عبد أحمد waxaan deganahay magaalada Oslo asal ahaan waxaan deganaa wadanka Ingiriiska gaar ahaan London horta sheekadan 5 daqiiqo lagu soo koobi karay document yar waa musalsal dheer marka carruurta waxa lagu qaatay waxay la deganayeen hooyadood maxato muddo ilaa iyo 3 sano hadda ka hor in gaarayso koora laga qaatay aniga waxaan deganaa Ingiriiska waxa la soo sheegay in carruurtii la qaatay oo aan ahayn markii ugu horeyso carruurta laga qaato dhowr jeer hore looga qaatay laakiin middan waxay ahayd midii ugu dambeysay oo lagu qaato waa soo cararay inkastoo aabba iska ciyaalo suuqa markii hore carruurta dayaca ahaa wixii intii ugu dambeysay aan jeclaystay inaan ka salgaaro oo aan carruurtii haddii aan arxanaani u noqon karo aan soo celiyo dadaal ilaahay rabbi xaqiisa ah iyo waarid ducadiisa iyo dadaal aan sameynay carruurtii waa soo celiyay waxaa gacanta lagu haystay muddo ilaa iyo sanad iyo 6 bilood markii la soo celiyay aan London ka soo guuray wadankan aan soo degay magaaladan Oslo ee caasimadda wadanka Norway waxaan muddo deganaa sanad ah guri qaanabaan ay leeyihiin oo magacii lagu sheegay hadda ii gooyay baana Mothersiam guriga waxaan deganaa muddo sanad ah carruurtii aan kula noolaa ilaa carruurtii aan magacii ku soo wareejiyo process dheer aan maray haddana aan deganahay magaalada Oslo guri madax banaana wali still igama ayna lug bixin marka haddaba haddii carruurta la qaato waxaa jirta dacwado aan dhammaan sanooyinna qaadata taasoo marmarka qaarna aan soo afjarmin oo u bilaabata waalidku si ay dib ula soo noqdaan xorriyadda ubadkoodii laga qaatay waa waddo qodxo badan leh una baahan samir iyo dulqaad si aad ugu guulaysato in aad sanooyin kadib carruurta la soo noqoto wallaahi horta watan haddaad ka murmayno waddada loo maro midda ugu horeyso annaga haddaan Soomaali nahay waxaan qaado xanuunka carruurta lagu qaato marka uu nagu dhaco waxaan ilownaa wadadii iyo sharcigii wadanka ka yaalay loo mari lahaa marka waxa laga yaabaa aabbihii ama hooyadii inuu aggressive isku bedelo مثلا waxaa dhacday mar in carruurtii aan rabo in la ituso markii ugu horeysay oo aan dadka kaaga sheekeynay in meel dhal ah lagu xareeyay oo carruurtii wixii carruur ay ku cayaaraan dhulka u yaalo fruit badan iyo nanac dhulka loo dhigay oo aan attention-kooda ba adiga ku soo aadeen in lagu dhaco carruurtaada kuwaas daawo
aan taaban karin marka Soomaali markaan nahay oo dhaqankeena iyo culture-keena iyo dhiiggeena aan gadaal u fiiriyo marka saasna lagu sameeyo aabbaha Soomaaliga wuxuu sameyn lahaa muraayadu feer ku jabi lahaa marka taa waxay cadeynay markuu aggressive-kaas aan sameyno in aad u noqoto gadaal oo la dhaho aabbahan waa khayr mas'uul waa nin aggressive carruurta laguma aamini karo si simple carruurta lagu qaado laakiin aniga tala hore haystaa aan dhuftan gadaal u laqay waa iska aamusay waa adkaystay waa iska soo baxaanoo adoo gudaha ka oynaya marka waxyaalo dhib badan oo waxaa jira loo soo maro waxyaabo fara badan oo negative iyo positive waa kala kulanay dhibaatada weyn ee dhacday waxa weeye runtii maalintaasi markay carruurta qaateen waxa kale oo ay sameeyeen oo macnaha dhibaato ah hooyadii laftirkeed bay iskuulka ugu tageen iskuulkii ugu tageen bay ka qaadeen iyadii laftirkeed looma ogolaanin inay gurigeedii iyo wax aniga contact inuu na dhex maro de wuxuu iska afduub oo kale waxay geeyeen meel lagu magacaabo Kifina Crisis Center way ugu talagaleen nimankii naagaha isdilay in la geeyo telefoonkiina way ka qaadeen markaas waxay ku yiraahdeen halka joog de qof arintaas lagu wargeliyay oo runtii dhibaatada inta leeg inta la sameeyay haddana xiriirkii iyo cidda ugu kaliya ee wadanka garanaysay ama marka iyada ay direct contact la soo sameyn kartay de communication kini laga xanibay waxaad garan kartaa de wixii it's kind of maragtay afduub inay macnaa ay noqonayso runtii hooyadii markay meesha joogtay waxay ku yiraahdeen si ay sheegtay mar dambe ma waxaad doonaysaa ilmahaaga inaad la noolaatid mise ninkaaga baad doonaysaa keebaad dooranaysaa option labada option mid qaado de markiiba go'aan bay qaadatay waxay tiri de maadaama wax discussion aan meesha u soo jirin waxay qaadatay go'aan inay ciyalkeeda la noolaato oo ciyalkeyga la noolaanaya ninkaas de waa nin weyn shalayba wadanka isaga yimid laakiin ciyalkeyga igama marmaan anaka marmaan ciyalkeyga u baahna runtii optionkii isaga ahaaba waxay ku dayeen inay xoogaa arintaasi ogolaato runtii ballanqaadkii u sameeyeen way uga baxeen oo waxay ku yiraahdeen carruurtaadii dhowr maalmood 5 maalmood markay meesha ku hayeen dhul aanay garanayno meesha magaalada aan deganahay meel u jirta almost 180 kilomitir bay keenoo aanay weligeed arag xitaa markay wadanka imanaysa xitaa diyaarad ay ku soo dul martay moogay xitaa aanay garanay xitaa gaari looga soo raaco runtii maalintii dambe markay aad u 5 maalmood meesha ku hayeen oo carruurtii ay u geyn laayeen waxay tiri qof weyn baan aan carruurtaydina hadaan la ii keenaynin waxa damacsantiina la ii sheego runtii waxay ku yiraahdeen carruurku ma soo wadno ayda halkan inaad joogtid iyo waxa rabtid aad ka badin weyso samee runtii markii arinta anaguna de baadigoob ma aanan fariisanin oo baadigoob badan baan ku jirnay hanoo suura gashay ama macnaha aan website-ka ka helay meesha gobolkaasi dadka nimankii islaamaha isdildilaa la geeyo meeshii baan helay waxaan raadinay dad Soomaali oo meeshaas degan nasiib wanaag gabar baan ku guuleysanay Soomaali oo meesha joogta gabadhi baan xiriir la sameynaan ku nari bal kale qof noocaas de luqadan aan garanay wadanka ku cusub 10 bilood kaliya wadanka joogta ayaa macnaha arintaas naga qabsatay marka meesha ma noo soo hubin kartaa gabadhi baa meesha tagtay adigu way isu sheegtay runtii gabadhi damaanad bay ku soo baxsatay gabadhi waxay tiri aniga daminka way soo kaxaysay dan way nala soo xiriirtay waxay noo sheegtay inay meesha joogto marka anigu runtii iskuma buuqin sababtoo ah wixii waxa ay u baahan tahay dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed kaga faa'iideysteen baa waxay tahay qofka markii waxaan oo kale la soo gudboonaadaan wuxuu luminayaa controlka oo dhanba ka lumaya maskaxdiisa buu luminayaa hooyadii way isla hadlaysaa aabihii wuu isla hadlayaa arintaasi runtii waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan waan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka gaaraya haddii ay si cilmiyana waayo waxaan xoog inkastoo la isticmaalayo dawladeed haddana waxa la isticmaalayo waa qalin iyo warqad qalinka iyo warqadaasi maadaama adduunyadu hadda waxa la yiraahdaa terrorist ka jira terrorist ba adduunku wuxuu noqday labo mid qori wata iyo mid qalin iyo warqad loo isticmaalayo it is kind marka terrorist ka mid ah way jira walwal weyn oo la soo gudboonaaday waalidiinta ku nool wadankaasi lana xiriira cabsida ay ka qabaan hay'adda caruuraha qaadatay ee Banfan oo indhaha ku haysa hadba caruuraha ay qaadanayaan balse waxaa jira in hay'addan ay bixiso adeeg ay ku caawiso qoysaska haddaba hay'addani maxay tahay sidaysa u shaqaysaa ibraahim haddaan kaaga sheekay horta qoladani waa qolo aad u dhib badan Soomaalida ama anigu aan ku jira ama aan la mid ahayn iskabti badan ay ka qabto oo ay tahay kalsooni darro ka dhaxaysa iyaga Soomaalida iyaga carruurta ugu badan la qaataa waa Soomaali dalkan haddaynu ka warhayno
hooyooyin badan baa dhibaataysan oo dhakhtarada dadka waa lagu xareeyay qaar baa guryahoodii kaligood ku ooyay la mid ah haddaad aniga su-aashaan ku soo noqdo ah adi weydiisay ma wax xidhiidha ha waxa weeyaan anigu waxaan ku dhahdaa hablaha Soomaaliyeed oo dhan hadeedaan idinku shoolada ugu dhicin oo idaan idinku dalbanin inay idin caawiyaan ama ay wax idin sameeyaan iyaga idin soo fargelinaya horta positive iyo negative kooda badan laakiin positive way leeyihiin sharciyan inagu waxaanu ognahay in carruurta qaataan laakiin waxa xaq u leeyihiin in bini aadanka ama say waalidiinta oo kale ama carruurta iyo waalidka conflict ka dhaxeeya the problemka ka dhaxeeya waalidiinta inay soo lafgareeyaan dalkan carruur korinta easy ma ha walaalo carruuraan ku koriyay inanteeda weyn ku 20 jir bay jirtaa ilmahayga weyn 2 sano buuxinaya inanteeda ku 20 jirka jaacada sanadkii horeeyay bay marka neeras dhamaysay de hooyo waxaan ahay dalka waqti hore timi Yurubna soo gashay marka Ibraahimow qoladaasi aad bay u dhibadan yihiin marka de banaanka ka joogta ee og tahay inaanad dhexgali karin aad ka baqayso ama aad artay dadka ula dhaqayaan xoog baad uga baqaysaa xanuun badan bay kugu haynayaan warqada yare baanaban ama social work carruurta ay ku qoran tahay dad baa iyagoo warqada ay tahay iskuulada oo kale waxay diraan waxa la yiraahdo baanaban bishimiri ama baanabanka ay u diraan wixii dhibaato ay jira ay wala warqada yar markay arkaan sentence-ka ugu horeeya ku qoran ay dalka tigrinta loo ururiyo carraan carruurta la idinka qaadaya maaha macnaheedu waxay arkeen dhibaato badan oo carruur badan oo la gurtay 1300 dheeraad carruur baa la qaatay sanadkii hore waana Soomaali marka laakiin marka aad u dhex gasho ee gudaha ugu dhacdo ee isbarataan kuna soo raadsan maayaan xitaa caawimo ka dalbatana xitaa waligood ku iman maaya in yar waxaan dharay barnaamij waxa la yiraahdo waqtigiisa ka soo horeeyay baby yar marka kii kale oo marka sanadii wax yar baa ku masayray guri 4 dabaqan soo degay waqooyigan ka soo guuray Oslo soo degay markaasaan arkay inuu kii yara ku dhagaayo baby ah marka kan waxa la yiri ilaali xoog marka xoog baanu ilaalin jiray marka waxaan isla ku dhagi doonaayo u dhiman kana iyana ilmahanaad way adna dhibaato ku imanay u dalbaan haaga hanu dalbaday baanahaaga baa wigi ku xiga waxa soo diray warqad ay ku qorantay ilma xanuunsanayna ma haysatid baanabankuna noomay soo qorin inaan ku caawino marka xaq ma leeyahay nasta oo sanadka dambe soo codso labadii carruur hayar baan busheerkii ku xidhay waxaan tagay meeshii waxaan dadka telefoon Oslo catalogan telefoon waxaan ka eegay communka ah baanabankan eegay waxa la igu yiri telefoonkoodii baan garaacay waxa la igu yiri halka way address-ku basqan raacay waan u tagay baby yaraan watiya kii kaloon ku wada riixayo markaas waxaan ku yiri waxaan u baahanahay baanabanka ninkii meesha reception ka fadhiyay markaas uu igu yiri waxaan u maleynayaa inaad ayda u baahantay ma leed baa laga caawiyaa ma ayda bill baad rabtaa ma yabaan ku yiri baanabankan u baahana ila yaab wuxuu maxaad uga baahantay anigu qof baan u baahanahay aan la hadlaan ku dhama ila hadli karaa haabi igu yiri iyagii inaba ay soo baxay wixii guur maxaad u baahantahay waxaan ku yiri warqadii baan soo waxaan ku yiri xaafadaasan deganahay waqooyiga Norway baan ka soo guuray waxaan u baahanahay inaan la hadlo warqadii la ii soo diray waatan marka waxaan u baahanahay inaad caawisaan marka baanahaaga balaastaan u baahanahay way habiyo warqada noo saxiixo 3 cisho ka bacdi ayaan kugu imanaa guriga isniin baan u tagay 4 khamiis 4 سنين بهد 3 4 خميس تبي بعد الإسلام إسلام إلا كنت ندور شرو وضع صعدة واحد يقول هذا شكري محض نوقبها هنتها واحد هرت واحد تقف يجوه ري نوي ماده أنا قلت هذا نتقنا ما يضل نوي ماده ما نارك وأنا نليا من بيت هذا المكان ناطبي ده واحد كور أنا بانك هنتي واحد أنا جاي استيعابي وقوي النور مكان دجنا عروت هذا بهود وحها nin la shaqeeyo hay'adan baanabanka ilaa imika la shaqeeyo dhowr iyo 20 sanadood caruur baan korinoor hayay waxay yihiin baan aqaanay waan ugu aqoon badnaa dadka because ilmo yar yar oo teenage wadanka ku yimaana hooyo waxa caruurteeda abahoodna aabbo waxa marka guri weyn baan ku haynay waan la deganayn dad waxaan haynay la shaqeeya hay'ada marka taasina way si caawinaysaa talabada waxaan aaminsanaa waxaan anigu xaq u leeyahay maadaama aan kalsooni isku qaboonan isla caruurtada wax dhib baad ku sameynaysaa bal sidahan caawiska doonaan side kana way yimaadeen waxay yiraahdeen warqada noo saxiix meel walba aan ka soo baarina dhaqaatiirtaada meel walba waan u saxiixay Ibraahimow plus kile ii diiday nasta oo la igu xukumay inaanan heli karin 2 cisho ka bacdi waxa la igu yiri full care ilmahan kale haysataan markuu sanad gaaro soo dalbo waan ku siinaynaa waxa la iga caawiyay kaliya baan ahaa markaas oo caruurteeda abahood iga dambeeyo jaamacadu ka dhiganay waqooyiga iskuul waan u shaqeynayay in la ii sameeyo qof ilmihii yaraa ilahaya gabar Soomaaliyeed baan u yeedhay waxay leeyihiin many ways badan oo ay kugu caawinayaan waxay iga bixiyeen
caruurta halkii lagu hayay safoog oo kale waxa aanu xaquuq badan oo aynu ku leenahay oo inaan ka faa'iideysan baa jirto ogahay anugu aan dadkana u sheegan ku dhahda ka doonta laakiin dhibaatadooduna way badan tahay waliba xaq ugu soo dhexdhacaya ilmahaaga marka liyaata ka qaadaya dhibaatadooduna ma sahlana marka ilaahay dhibtoodana haynaga ilaaliyo dheeftoodana hayna tuso muddo yaroo kadib Aabba Nuur waxa uu ku guuleystay in dib loogu soo celiyo laba ka mid ah caruurtiisa oo ah labadii gabdhood ee ugu roronaa caruurta 10 gaaraysa ee gacanta ugu jira hay'adaasi Bonfam labadan gabdhood ayaa hadaba waxa ay la kulmeen marxalada aad u adag kadib waqtigii ay gacanta aabahood iyo hooyadood ka maqnaayeen gabar ka mid ah gabdhaha labada gabdhood ee uu Aabba Nuur uu dhalay ayaa waxa la geeyay magaalada Kristiansand oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waddankaasi Norway si ay qayb uga noqoto waxbarashada ka socota iskuulada Kristiyaanka ee diinta Kristiyaanka lagu barto ee ku taala magaalada Kristiansand iyadoo ugu dambeyntiina lagu guuleystay in gabadhaasi caqiidadii diinta Islaamka laga bedelo haddaba dhacdada ugu xanuunka kulalo waxay ahayd Aabba Nuur markii loo sheegay in labada gabdhood dib loogu soo celinayo ayaa isla markiiba waxa uu fududaatay mid ka mid ah gabdhahaasi in ay dib ula soo qabsato noloshii waalidkii ay ka tagtay iyo waliba reerkii ay ka tagtay halka gabadha kale ee iyadu caqiidada laga bedelayna ay ku adkaatay in ay soo dhex gasho biyo aysan aqoon diin ahaan iyo dhaqan ahaanba kadib muddo yar oo laga soo bedelay diintii macaaneed ee haysatay nasiib wanaag maxkamadii Langre Maalintireedka ayaa waxay soo baxday fatakeedkeeda ama go'aankeeda wuxuu soo baxay 29kii bishii 6 runtii taasi oo ay ku go'aamisay laba ka mid ah caruurta laba gabdhood in dib haddana loo soo celiyo oo ka mid ah caruurtii hore loo haystay runtii arrimahaasi waa labadii gabdhood ee maxkamaddu go'aamisay mid ka mid ah hadda waa la keenay guriga oo hooyadeed bay la joogtaa midii kalena weli lama keenin processkeedii soo celinta iyo waxaas ayaa hadda lagu guda jiraa laakiin waxa nasiib darro ah gabadha yarta ah markii gacanteeda ay ka baxday kadib waxa la geeyay iskuul oo macnaha Christian school ah waxaana dhacay maaragtay isbedel runtii aan filaynin oo hore loo qarinayay oo hadda ka soo baxay canugtii in diinteedii laga bedelo luuqadeedii ay weyso taasi oo ilmaha Soomaaliyeed ee dhamaantood ay qolooyinkan qaadanayaan ay ku hayaan wax ma aha canuga kaliya waxaana waxa weeye dhaqankoodii la bedelo diintoodii oo laga baabi'iyo luuqadoodii waayaan intaasi oo run ahaantiina ay tahay caruurta mid ay xaq u leeyihiin isla markaad raacid baana convention-kana uu qabo inuu canuga haddii xitaa waalidkii laga qaado inuu xaq u leeyahay inuu haysto luuqadiisii dhaqankiisii iyo diintiisii runtii dhibaato weyn baa hadda meeshaas naga soo wajahday oo gabadhiyo diintii ka bedelan dabcan gabadhani waa gabar Soomaaliyeed waa gabar muslima in laga dhigo Christian in laga dhigo ayaa maraysa oo ay diinta Kristanka macnaha dabcan maanta ku leedahay macnaha anigu muslim ma ahay anigu 12 jir ayaa maanta wuxuu ku leeyahay anigu muslim ma ahay dhibaatadan baasan ee qaadashada caruurta waxa iyaduna qayb weyn ka ah burburka ku yimaada qoysaska Soomaaliyeed daraasaad aan sameynay oo aan ku sameynay barnaamijka sahan ayaan ku ogaanay 70% qoysaskii Soomaaliyeed ee soo galay qurbaha gaar ahaan wadamada Scandinavian-ka inuu ku yimid burbur ay ku kala tageen hooyooyinkii iyo aabayaashii kadibna qoysku uu ku yimid dayac baasan oo marka dambana sababa in caruurtu ay u gacan gasho hay'adda Bonfam oo iyadoo ah hay'adda ugu awoodda badan leh marka loo eego hay'adaha la shaqeeya arrimaha qoyska runtii way noqonaysaa oo waxa jirta dhacdooyin badan oo qoyska runtii burburka qoyska Soomaaliyeed qurba jooga soo waajahaya kamid tahay marka aabaha iyo hooyada xiriirkoodii xumaado ama isfuraanba ayaa waxa dhici karta mid kamidihii isagoo ku xumaynaya kii kale
in aanu qadarin badan siin ama uu yidhaahdo waxba igama gelin ha qaato intii aad adigu iyadu hayn lahayd ama isagu hayn lahaa dawladduba hay hayso waa dareen jira dad badan maaha runtii waa arrin laakiin jirta oo la taaban karo waxaa jira dadaallo ay wadaan dhalinyaro isu xilqaantay in arrintani ay ka qayb qaataan in loogu gurmo dadka Soomaaliyeed waxaana jira barnaamijyo loo sameeyo waalidka Soomaaliyeed ee la xiriira sida waalidku la dhaqmi lahaa caruurihiisa oo ka bedelan habkii ay markii hore wadankii ay joogeen ayna ula dhaqmi jireen ama ay ula macaaltami jireen caruurahooda bismillah runtii bilowgii dawladda markaan la kulanay de arrinkan arrin uu masaajidka hore u qabta ma ahayn oo waxaan ka dareenay de inaysan arkin mise dareemin awoodda uu masaajidka runtuu leeyahay adiga dhowr kulamo kadib oo hadda waxaa ugu dambeysay April ayaan waxaa la kulanay wasiirka haysta wasaaraddan ku shaqada leh faamilada caruurta wasiirka invitation aan u dirnay masaajidka ayaan rabnay inaan ku casuuno marka u suurtagali waysay annaga marka u tagna xafiiskeeda oo runtii qadarinta ayna qadarisay waxaa ka mid ahaa inay annagoon u sheegin inay shirka ku casuunto madaxda ugu sarreysay ee waddankan ku shaqada lahayd arrimaha quseeya caruurta oo taas shirkaas marka waxaa ka soo baxay runtii kalsooni inay hadda dawladda noo yeelatay een og yihiin ee dareemeen bulshada inaana meeshii ku kulmaysay maxaan ku idhaahdaa ayna dareensan yihiin dhibaatada jirto oo marka waxaa aada noogu dhiirigeliyeen inaan howsha meesha aan kasii wadno oona wayna arkeen in loo baahan yahay bridge builders mise dad u dhexeeya bulshadii iyo dawladda oo ayna tahay masaajidkana meeshii ugu habbooneed maadaama meesha dadka ku midaysnaa inay tahay runtii wadahadalo badan ayaa noo socda sidii aan howshan wadnaan u faafin lahayn iyo sidii loo xoojin lahaa howshan wadno marka runtii alxamdulilah shirka ugu dambeeyey oo qofka ugu muhiimsanaana wasiirka uu ahaa waxaan kala soo tagnay anagoo runtii dareen fiican leh waxaa jira in warbaahinta ka jirta magaalada Oslo ay ugu horeyso idaacadda maqal oo ay ka howlgalaan wariyaal Soomaaliyeed ay ka qayb ka yihiin wacyigelinta kaalimaha arrimaha bulshada Soomaaliyeed ee la xiriirta arrimaha qaadashada caruurta iyagoo halkaasina iyagu ka baahaya barnaamijyo xiiso badan oo la xiriira aqoonta iyo kor u qaadista ku noolaanshaha waddankan Norway annaga marka barnaamijkeennii gudaha u sii geli doono ayaa dhagaystayaal badan waxay naga codsadeen bal inaanu caawa ku soo qaadno barnaamijkan caafimaadka bulshada Soomaaliyeed halkan waxaa ku nool 36,000 oo Soomaaliya habay yaraatay waad ogtahay adduunyada imika wuxuu noqday kubadda ayaa lagu wada jiraa oo sidii la isku gaarsiiyo warku imika aad buu u fudud yahay marka annagoo muddo badan laga sheekaysanayay oo dadku uu jiri jiray radio waliba walaalkay Baasha xildhibaan Baasha oo isna qayb ka qaatay oo sanadihii hore marka sagaashameeyadii laakiin muu sii socon kadib ayaan anagu oo marka bulshada Soomaaliyeed muddo badan ku nooleen waddanka Norway ayaa isku tagnay oo fikradda ka fikirnay oo wax badan qorsheynayay oo isku dayay nasiib wanaag way noo suurtooday inaan markaa helno meel jaban FM ah bardhowdna noqon doona dab waxaan la yiraahdo imika netka in lagu isticmaalo adduunka oo dhan ayaa markaa noo suurtooday inaan halkan aanu helno oo la qaybsano halkan aan ku soo dhaafayo waa waxa qaybsada 8 af oo kala duwan Afghanistan waa Pakistan oo afka Carabiga ku baxa afka Tamilka ayuu ku baxa wuxuu ku baxa afka Albaniga iyo anagoo markaa Soomaaliya runtii wacyigelintu waa wax aad faa'iido badan u leh oo aan bulshadeenu ay u baahan tahay waayo meedyuhu wax weeyaan waxa kaliya ee isku xiraya bulshadan ay afkeeda ku hadlaysa ee Soomaaliyeed iyo bulshadii kale wixii ka imanayay marka labada side-ba way u faa'iideyn kartaa oo ay tahay inay ka soo qaadaan wixii macluumaada xagga kale iyo inay ka qaadaan u gudbiyaan Soomaalidii marka wixii faa'iidada iyaga u ahaa ee ay hubka ka dhigan lahaayeen isku difaaci lahaayeen marka aad waxaan
guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba in ay ka haqabtiraan كل وهي هؤلاء عدو ناقصين إن كها قبتران أو أي كدران هذه يشير إن مجتمعوا وقفة إيدين أنتي أي وقفة إيدين كران إن وحلا يلاحظوا متدوع منهم. haddaan ka warramo raadiyo maqal waxaan siideynaa barnaamijyo aan isla aad u fara badan yihiin inta badan waxaan culays ka saarnaa waxyaabo ka dhacaya waddanka Norway ee ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Norway quseeya waxaan siideynaa barnaamij caafimaadka oo waxaa naga caawiya nin isna dhakhtar oo Soomaaliya marka waxaan soo qaadanaa barnaamij cudurrada ku dhaca dumarka cudurrada ku dhaca carruurta cudurrada macaanka waxyaabo caynkaas aan islayn ummadda Soomaaliyeed inta badan way daneynayaan dadkuna way soo dalbadaan waxa waxaan u baahnaa in maanta xanuunka laga hadlo su'aaleyna soo weydiiyaan dhakhtarka toos ugu jawaaba marka waa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan waxa kale oo jira isna barnaamij inta badan aan soo daalaynaado ma garanaysaa talasiinta waalidka waa barnaamij ka hadlaya wuxuu inta badan ka sheekaya carruurta iyo waalidka xiriirka u dhaxeeya carruurta waalidka iskuulka xiriirka u dhaxeeya waxaan inta badan ka warranaa oo warbixin ka siinaa maadaama waalid badan ay jiraan oo ma garanaysaa aan luqadda waddanka aqoon ama aan waddankii iskuulku soo marin ama halkan wax ku baran laakiin waddankii isku soo dhigtay inaanu fahansiino xiriirka u dhaxeeya ma garanaysaa ama kala duwanaanshaha iskuuladii waddankii iyo iskuulada halkan waxa qofka waalidka laga rabo caawimadu ilmuhu uga baahan yahay waalidka waxaa soo dhamaan isku dayna in waalidka u jilcino oo fahansiino kadib wayna la soo xiriiraan su'aalina weydiiyaan si marka iskuulada la bilaabayo kale waxaan u sheegnaa ilmaha waxa laga rabo iskuulka waxa laga doonayo waalidku waxay ku taageeri karaan ilmuhu waxa u baahan yahay markaasi taageerada ma garanaysaa sidoo macalinku iyo waalidku wada xiriir karaan waxa badan oo caynkaas ayaan inta badan uga sheekeynaa waalidka sidaasi oo ay tahay dhinaca kalena marka la eego waxaa jira dhaqdhaqaaqyo horumarineed oo Soomaalida xagga ganacsiga ay ka sameeyaan magaalooyinka ku yaala waddankaasi Norway oo ay caasimadda Oslo ay ka mid tahay sida xawaalada Dahabshiil oo ka mid ah xawaaladaha ugu caansan adeega lacag dirista Dahabshiil waa company weyn oo caan ah oo la yaqaano muddana soo jiray waddankan aan joognay Norway waa shirkadii ugu soo horeeyay ما تكشخيسين جري سيدا قياسها يعني كل 1995 كميال هاس وحي كدن بي أي شركة دوخل كان كشخة بلاده دهبشيل واهيستا شرعي وهيستا شرعي انترناشنال أو UK إنجليز كا أو مارتي أنا قالوا كشقينه خاصة تكان كي وكشقيا شرعي جاس dadka si sharci ah ugu dirnaa ID card ka qaadnaa ID card ka qaadno waa ka koobiyeenaa si sax ah oo dariiqa sax ah oo sida Western Union iyo MoneyGram iyo bangiyada kale qaabka ay u shaqeeyaan ayaan dadka ula macaamilnaa shirkadda Ammaano waxa ay ka mid tahay iyadoo adeegyada xawilaadlayaasha ugu waaweyn magaalada Oslo iyagu bixiya adeegyada lacag dirista iyo waliba soo dhaweynta macaamiisha dadka Soomaaliyeed oo iyagu noloshoodu ay ku tiirsan tahay dadka ku nool wadamada qurbaha gaar ahaan wadanka Norway shirkadda Ammaano horta guud ahaan waxa la aasaasay sanadkii 2000 waxaana sababtu ahayd kulli bulshada Soomaaliyeed oo badan waxay u baahan tahay adeeg badan burbura jiray waagaas dadku waa dhibtoonayeen waxa u soo baxday dadka marka go'aankeeda lahaa in ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay adeegaasina cid kaabta xilligaas loo baahnaa daraasadeed kadib arintaasaa keentay marka in go'aan la qaatay in xawaaladan la hirgeliyo ilaahay faligiisa isku dayiina wuxuu uu dhaqan galay markiiba waxay noqotay xawaalad solid ah oo shaqadeeda iyo adeega ay bulshada u haysatay ku guulaysata waxay adduunyada si worldwide ay uga shaqeysaa from China to Australia ilaa Europe marka
sidaasay ahayd waxay kasbatay kalsoonida mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed dadku aad bay ugu kalsoon yihiin adeegyada inaguna waanu ku dadaalnaa in adeegaas aan ummadda u hayno aan si hufan uga soo baxno ilaahay falligiis xawaaladu meelo badan ay ku leedahay sharciyo waaweyn waxaa ka mid ah Norway waxay ka heshay dowladda Norway wasaaradda maaliyadda qiimeyn dheer kadib waxay u ogolaatay inay amaana ka mid noqoto xawaaladaha lagu aaminay adeega ummadda waxaa la yidhaahdaa kuunda midlarka marka sharci weyna waan haysanaa hadda waan ku shaqeynaa ummaddana adeegeedaan ugu hufnaa waxaanan ilaalinaa qaanuunka wadda kale waan ku dadaalnaa inaan ilaalino si ayna u dhicin mataqaanaa wax ummadda Soomaaliyeed iyo magaceeda iyo wixii lagu aaminay dadka soo bixi kara inay noqdaan marka arrimahaasaas halkaasay marayaan Tawakkal waxay safka hore kaga jirtaa adeega bulshada Soomaaliyeed ee xawaalada lacagaha maadaama dadka waddanka jooga ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay u soo diraan dadkooda ee dibadaha ku nool dadka Norwayna waxa uu ka mid yahay wadamada Soomaalida ay ku dhaqan yihiin oo gacan u fidiya qarabadooda iyo heladooda Soomaaliya shirkadan Tawakkal shirkadaha ugu waaweyn waddanka hadda ka howlgalay ka mid tahay waa shirkad asaaskeedu uu horeeyay oo leh facilitate fara badan ama macluumaad fara badan bay leedahay sida Tawakkal waxa la dhahay leedahay oo aan lahayn shirkadaha kale waxay kaloo leedahay waxaad ku dirsanaysaa lacagahaaga telefoonada kale saad iyo sahal iyo waxay leedahay shirkadu MPC waxay dhahan Kenyanku oo si toos ah mobilka lacagta lagu shubay reerkiina meel walba joogo shirkadanu waxay mar walba tijaabisaa yani nuqdo cusub oo shirkadaha kale kaga daydaan ayay tijaabisaa horumar xagga tiknoolajiyada la socota iyo bangiyada sida mar walba u janqaadayaan ayay samaysaa waxaana ka shaqeeya dad professional ah shaqadii qumaati u yaqaana maareeyaha sida shirkadda waa nin aqoon khibradeed ganacsi leh qaybta IT-ga injineerka waa nin injineer Erik la dhaha jooga oo ku takhasusay IT-ga oo Yurub ku qaatay shahaadada ku qaatay marka xaggaas macluumaadka shirkaddu dhinacaas waa shirkad reliable lagu kalsoonaan karo Adler Travel Agency waxa ay ka mid tahay horumarada dhanka ganacsiga ee Soomaalida Norway ay ku talaabsadeen waxa hadaba jirta dadaalo inta badan dadka Soomaalidu ay dib ugu laabtaan wadankii hooyo hadaba si taasi ay u helaan waxa jirta adeegyo la xiriira helista tigidhada iyagu lagu raaco diyaaradaha marka loo socdo wadankii hooyo waa shirkadda dhoofitaanka ama travelka waxaan furay runtii waxaan aasaasay sanadkii 2004 14 laakiin waxaan shaqo geliyay 2015 waxaan jarnaa tigidhada adduunka oo dhan cid kasta baan u jarnaa laakiin gaar ahaan waxaan u jarayoon jecelahay inaan uga faa'iideeyo dadka Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadla oo aan siino service aad u fiican iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dhinaca kale waxaa jira fursado waxbarasho oo ka jira waddanka Norway taasoo si fudud qofku ugu faa'iideysan karayo nooca ay u shaqeyso wasaaradda waxbarashada iyo fursadaha Norway ay siiso ardayda waddankeeda yimaada waa mid caynkeeya wadamadan siiba Norway waxa waxbarashadu waa free jaamacadda yani fee lagama qaadayo oo jaamacadda aad ku dhiganayso bilcaks waxaa jirta hay'ad dawladda oo u xil saaran inay deyn iyo deeq lacag isku jirto deyn iyo deeqa lagu siiyo oo waxbarashadaada ku dhigato waxbarashadiina free bay ku tahay marka haddaad fiirso matalan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo systemka noocaas kama jiro waxbarashadiina lacag baad bixin ama sanad walbaad bixin maxay ahayd lacag adigu $2,000 ama semester walba marka yani taas macnaheedu waxa weeyaan waxbarasho free ah halkan taalo caalamka kale waxyaabahan la yaab waxa kamid ah waxaad arkaysaa Yurubiyaankan iyo wadamadan kale xitaa Mareykan baa ku jirta ardayda wax dhigay
oo halkan imanaya ta kale waxa weeyaan caqabad sideedaba meel walba way jirtaa laakiin dee caqabaddu markay jirto haddana opportunity iyo ama jaanisyo badan baa iyadana jira marka waxaan anugu shakhsiyan aaminsanahay jaanis waxbarasho oo aad u sahlan oo aad u fiican baa waddankan yaalla waxay u baahan tahay kow ama inaad gadaal intaad u noqoto luqaddii waddankan barato oo kadibna dugsigii sare oo sannad ahaan haddaad qof weyn aad ah timid aad marto wayna sameeyaan dad badan baa sameeya oo saa jaacaddi ku gasho dee ilmaha meeshan ku dhashayna waxa weeyaan systemkiibuu marayaa oo waxbarashadii dugsiga sare caadiga ahayd iyo saasuu heer jaamacadeed ku gelaya laakiin dee badanaa hadda sanadihii ugu dambeeyey dadku aad bay dadka Soomaalida ah ama Soomaalida Norway aad baa jaamacadaha ugu arkaysaa ugu soo badanayaan matalan 13 sano ka hor anigu markaa masterka sameeyay departmentiga dhan keligay baa Soomaali ka ahaa laakiin hadda ilaa 12 ruux baa jooga oo gabdho leh oo wiilal leh oo arday heerar kala duwan waa departmentiga kaliya jaamacadda dhan ma meel walbana waad ku arkaysaa oo jaamacadaha waddankan laakiin weli ma aha heerkii laga rabay Soomaalida waddanka degan in ay wax u bartaan sababtoo ah chance iyo waxbarasho free ah yaalla oo hadaad doonto ama dayn daasaad qaadan hadaad doonto shaqo maxaa hayday dhowr saacaad ku kabi taa nafteeda dee caqabado badan oo kale iska jiri karo qofkii yani dadkiiba Afrika ka jira Soomaaliya ka jira culays baa dhanka ka saaran laakiin haddana waa wax la maareyn karayo oo u baahan ummadda Soomaaliyeed si guud ahaan dibadaha joogta janiskaas aynan dadkeena Soomaaliya jooga ama Afrika ku fursan helin inay ka faa'iideystaan waxa weeyaan arrin muhiim ah oo u baahan in lagu wacyigeliyo sababtoo ah waxbarasho dii ummadda Soomaaliyeed dibadda joogta kaliya ay si run ah wax u bartaan yani dhibaatooyin badan baynu ka bixi lahayn halkana waxbaan ka noqon lahayn waddankiina waxbaan tari lahayn oo waddanka laftiisa dhibku ka bixi lahayn waxaa jira tiro arday ah iyagu ka gungaaray hadafkoodii waxbarasho ee ay ka heleen waddanka Norway iyagoo ka qalin jabiyay jaamacadaha ku yaala waddankaasi Norway waad mahadsantahay walaalkay Ibrahim waddankan markii aan imid 2004 waxaan bilaabay sanad kadib luuqadda waddanka Norway oo nooshka la yiraahdo muddo sanad iyo bar gudahooda waxaan xoogaa mataqaanaa sheeg dareemay inaan ku fiicanahay luuqadii marka waxaan istusiyay inaan gaari karo heerka weyn luuqadda oo heer waxbarasho ah maadaama markii hore aanan lahayn wax formal education ama aqoon ah haba yaraatee xitaa dugsi hoose dhexe ahaatee sida aad maragta arkaysana aanan aysan jirin xubno aan ku xamaasho waxaan yaraa isiri waxaa jirta fursad aad noloshaada wax uga bedeli karto muddo yar kadib waxaan codsaday dugsiga hoose dhexe ilaahay mahadiis waan ku guuleystay mataqaana ay sheegay waan helay waxaan maaragtay ay igu qaadatay 3 sanadood dugsiga hoose dhexe 2017 waxaan bilaabay mataqaana 7 ilaa iyo 2010 kadib hankaygi oo sii weynaaday waxaan sir waxaad gaari kartaa dugsi sare iyo aqoon ka sii sareysaba intaan oon mataqaana ay sheegaan ahayn basically dabcan yaran qaraabanahay oo waddankan asaguna wax ku bartay oon xoogaa mataqaana ay soo caawiyay ayaa igu dhiirigeliyay inaan wax barto iyo ninkan aad garanayso Dr. Gas labadaasna waxay kamid ahayn dadkii igu dhiirigeliyay inaan wax barto marka kadib waxaan bilaabay 2010kii dugsi sare 2 sano igu qaatay suuqaba ka sii koobnaa maadaama dugsigii hoose dhexe aan xoogaa boorka si fiican uga soo jafay dugsigii sare markaan dhameeyay waxaan codsaday jaamacadda Noos oo magaalada Oslo dariska la magaalada Oslo yiraahdo Oslo dariska la ayadiina 3 sano aan ku diyaariyay marka falilaahi alxamdu hadeertan waxaan haystaa shahaado bachelor oo barnaamijka la yiraahdo International Environment and Development Studies aan ka qaatay marka waxaan aaminsanahay in ay jirto meeshan 2 fursadood fursad shaqo iyo fursad waxbarasho maadaama aad waddankaagii ka soo tagto ama aan waddankanay ka soo tagnay haddii aan nahay Soomaali waxaan qabaa inaan labadaas fursadood
haddaba gabagabadii dadka Soomaaliyeed oo ah dad boqolkiiba boqol Muslim ah maxaa uga qabsoomay dhanka dacwadda iyo diinta iyo weliba aqoonta diinta Islaamka iyo goobaha cibaadada mar haddii ay yimaadeen wadamo ay aad u adag tahay in ay ku dhex cibaadaystaan jaaliyad fara badan baa degan oo jaaliya albakistaniya ama Pakistani community-ga ugu ballaaraado isagana weligii ahaa jaaliyadda ama weligeeda ahay jaaliyadda marka ugu dad badan oo iyagu 36,000 mar dhow sanadkii hadda unbaa Soomaalida 2,000 ay dhaafeen rubama dadkii hadda soo galay iyo cadad fara badan oo soo galay meesha waxaa kusoo horeeyay dad Pakistani baa kusoo horeeyay iyaga wadankan wax badan ka dhisay Turkiga iyaguna saas oo kale u joogay kadibna Soomaalidu waxay noqdeen jaaliyadka kale oo gadaal ka yimid kadib xagga Ciraaq baa laga yimid xagga Palestine haddana Syria iyo meelahaas laga soo socdaa oo wali cadad aad u tiro badan bay approve gareeyeen in ay meeshan keeni doonaan bimaana muslimiintu cadadkoodu aad iyo aad u badan yahay masaajid fara badan baa marka meeshan runtii ku taal masaajidaasu كان وحو كمid yahay masjidka saddexaad baan dhihi karaa xagga weyninka laba kale masaajid waxa jira inaga waaweyn masjid al-sunna ay dhahaan iyo masjid ICC oo saan naga fogeyn كان waa kan saddexaad run ahaantii inkastoo tawfiiq islamic center hadda mar dhow la taasiisiyay oo muddo 3 sano ayaanu mabnahan oo dhismahan cusub aan ku jirnay intii ka horeysay waxaanu deganayn meel kale oo iyadu xalkeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala iska ogaa muddo 25 sano ah bulshadan Soomaaliyeed ee degan Norway way halgan ugu jirtay sidii loo heli lahaa meel Soomaaliyeed oo gaara oo muuqaalkeeda leh dacwadan lagu fulin karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu suurta galiyay iyadoo juhudaasu ay iska kaashatay bacda tawfiiq Allah jalla wa ala jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Norway iyo walaalahan muslimiinta jaaliyadka kale Soomaaliyeed ee degan wadamada kale ama han noqdaan Scandinavian-ka Europe inteeda kale ama marka xitaa TV-ga iyadoo la aaday dadka wadanka xitaa ka soo hadlayay adii qof ka soo Soomaaliya waxaan filayaa inuu noocan ma haduusan waxba ka geysan ducadii iyo faraxa uu xitaa ku farxay inay ahayd qayb kamida garab joogu garab istaagay masjidka wallahi alhamd المهم مساجدها soo dhanba waxa buuxiyo camira Soomaalida waxaana badan بعض المساجد ولي ما لها انسان نوغيسي فوقين دغان waxa dadka salaada ka bixiyo Soomaali yani macna wujudka Soomaalida ama Soomaalida iyo booska ay ka taageen xagga dacwada wax la tilmaami karo yani waxaan ka hadlayaa numberka Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadiyay numberka iyo dacwada u heelan runtii sumcadu aad bay u qurux badan tahay marka laga fiiriyo xagga masaajida yaa buuxiya marka laga fiiriyo aimada dadka quraanka ama noocan ma dadka salaada ka bixiya quraanka xifdisan meel ka soo yurub la aadana runtii Soomaalidu halkaas si gaar ah bay ayaa farta loogu fiiqaa wallahi alhamd masjidkan marka wuxuu noqday mid Soomaali oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala isugu keenay oo wuxuu leeyahay dastuurkiisu leeyahay nidaamkiisu leeyahay inta baanu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu soo ilaaliyo wallahi alhamd marka hawshu marka Ilaahay baa isku aadiyay marka waxaan dhihi karaa طبعا عدد fara badan baa gadaal ka soo galay oo aan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana khayr Allah waafajiyo oo nolol fiican iyo waxa ay diishanayeen iyo umniyaadka meeshu yimid Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyo laakiin waxaan leenahay marka overall loo hadlayo ama si guud ahaaneed loo hadlayo Soomaalidu khayr bay ku sugan tahay wallahi alhamd de ka hadlimayna number yar oo leeyahay hebel saan intana طبعا Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga xarka isku ma hayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna kuwaan isleen walaalahan kamida sibay ma aragtay wax laga noqdeen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo celiyo